أهلا وسهلا صاحبي الهادي الله يدمو waxaan doonaynaa galabta inaan isla fahanno dhowr eray oo aad iyo aad muhiima oo ka mid ah chapterkii accounting-ka inoo socday su-aashan baynu doonaynaa inaan si deeply uga fahanno oo kana shaqeyno haddii alla idmo waxaan doonaynaa keywords-ka intaan akhrino su-aashan waa su-aal indirect ah so indirect question baa loo yaqaanaa keywords-kan ayaa akhrin doonaa kadib waxaan ka jawaabi doonaa su-aasha halka taalla okay saano kale waxaan eegi doonaa inaan classify ku sameyno classifying waa maxay waxaan kala sooci doonaa oynu ablaablayn ku sameyn doonaa itemska ablaablaynta lagu sameynayo wax ka mid ah asset liabilities revenues or ama expenses saddexda eray marka meaning Soomaali waa garanaynaa assetku waa hantida ama dhaqaalaha ganacsigu leeyahay liabilitiesna waa deynta ganacsiga ama isagu cid ku leeyahay ama isaga lagu leeyahay revenuesna waxaa loo yaqaanaa waa dakhliga ganacsigu marka uu shaqeeyo uu kasbado ama uu helo expensesna waa kharashaadka ganacsiga ka dhex dhaca sida maalinlaha ama bilaha ama sanadlaha okay haddii aan la idmo saddexda eray waynu sharaxaynaa halkan aynu ku sharaxnay ereyga koowaad waa assetku waa maxay waa resource-ka uu ganacsigu leeyahay that business owns waa resource-ka ganacsigu leeyahay oo ama controls uu maamulo taasoo la filayo in mustaqbalka ay yeeshaan future-ka mustaqbalka ay yeeshaan economic benefit faa'iido dhaqaale oo aad iyo aad u badan saano kale waxaa ka mid ah dhulka oo kale dhulku assetka uu ganacsigu haysto weeye for the future waxaa la filayaa insha allah inuu dhulkaasi qaaliyoobo sida marka waxaa laga heli doonaa economic benefit baa laga heli doonaa dhaqaale fara badan baa laga heli doonaa waxaa kaloo ka mid ah ereyga liability waxaa la dhahaa waa deyn deyntu laba weeye ama deyn ganacsigu uu ku leeyahay customerska oo loo yaqaano account receivable ama deyn isaga lagu leeyahay oo loo yaqaano account payable marka deyntaasi deyn mudaysan oo waqti bay noqon kartaa liability marka waxay noqonaysaa deyn bay noqonaysaa marka obligationska oo waxyaabaha ganacsiga ku waajibay ama debt awrka ama waxyaabaha ganacsiga lagu leeyahay oo uu ku leeyahay external party dadka banaanka ganacsiga jooga oo non owner-ka aan ahayn ganacsiga aan lahayn laakiin laga filayo in deynta mustaqbalka laga helo for the future-ka in laga helo deynta haddii alla idmo okay owner equity-gu waa cidda hantida shirkadda sheeganaysa cidda dhaqaalaha shirkadda sheeganaysa marka isaga waxaa lagu qeexayaa waa residual interest baa la yidhi waa faa'iidada ganacsigu uu helayo ama dhaqaalaha ganacsigu asad ahaan uu haysto kaasoo kambanigu uu helo marka laga jaro dhammaan wixii liability wixii deyn ah ama isagu cid ku leeyahay ama isaga lagu leeyahay okay revenue-gu isaga wuxuu noqonayaa dhaqaalaha ama dakhliga la kasbado ganacsigu markuu shaqeeyo taasi waxay siyaadisaa revenue-gu owner equity-ga hantida qofka ayay siyaadisaa qofka ganacsiga iskale ama kambaniga ayay siyaadisaa waxayna ka timaadaa mind business activity dhaqaaqyo ganacsigu uu sameeyey oo isla markaa faa'iido ka helay expenseskuna waxay lid ku tahay revenue-ga expensesku waa kharashaadka kaasoo ka dhex dhacay ganacsiga gudihiisa cost incurred waa kharashaad ka dhex dhacay ama resource dhaqaale la adeegsaday oo consumer ganacsigu adeegsaday markii uu dhalinayay haddii ilaahay kuu leeyahay faa'iidada ganacsigu markaa helayo okay intaa haddaynu isla fahanay su-aasha waa indirect waxaan doonaynaa marka sida ciwaankeedii ka muuqata inaynu isla fahanno su-aashan ma asset baa mise waa liability mise revenue mise expense afarta account baa loo kala saarayaa haddii alla idmo marka okay halka waxaa yaala accountna fara badan oo items lagu magacaabay waxaa lagaa doonayaa account type-ka inaad sheegto account type-kaas waxuu yahay inaad sheegta lagaa doonaya halka waxaa yaala cashkii baa yaala notice payable-kii baa yaala service revenue-gii baa yaala rent expenses-kii baa yaala laankii salary payable baa yaala interest expense bill rent baa yaala common stock baa yaala utility expense baa yaala sales revenue baa yaala account receivable baa yaala return earning baa yaala account payable okay waxaan doonayaa inaynu si degdeg ah uga shaqeyno erayadan account type-ka ay noqonayaan okay cash oo kale wuxuu noqonayaa asset buu noqonayaa waa cashku waa labo waa cash ahaan cash gacanta ay ku haysato shirkadu iyo cash in bank iyo cash ku jira bankiga ku jira marka almuhiim meesha doonaha ku jira asset buu noqonayaa notes payable-ku waa deyn laakiin waa deyn mudaysan oo shuruudo wadata iyaduna waa liability service revenue waa dakhli laakiin dakhliga waxaa laga helay ama laga generate gareeyay service adeeg baa laga helay servicekaasoo waxaa laga helay revenue isagu marka revenue buu noqonayaa halka revenue ku qoraynaa rent expense waa kharashaadka kirada marka la bixiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa rent expense so marka expenses bay noqonaysaa land waa dhulkii
asset buu noqonayaa. Salaries payable-ku waa deyn mushahara oo kaaga maqan shaqaalaha oo adiga lagugu leeyahay, waa liability bay noqonaysaa. Interest expense waa deyn aad iska bixisay oo dulsaara, iyaduna expenses bay noqonaysaa. Prepaid rent waxaa loo yaqaanaa waa kirada ganacsiga laga qadimo, saan 6 bilood sanad meelahaasaa laga qadimaa. waa assetka, waa meherada ganacsiga waxyaabaha meel u yaallay ka mid tahay, asset bay noqonaysaa. Okay, common stockna waa maxay? waa sheerarka ganacsiga uu leeyahay ama cid kale aynu ku leenahay, asset bisna uu noqonayaa. Okay, utility expense waa kharashaadka yararka, asset bay noqonayaan. adiga waxaan kaa baahanahay marka sales revenue-ga iyo account receivable-ka iyo haddii ilaahay ku leeyahay return earning-ka iyo account payable-ka intaa inaad sheegto account type-ka uu noqonayo. Account type-ka uu noqonayo ma asset ba, ma liability ba, mise revenue mise expense. aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiib.